أجي حساب صو sheekooyinka murugada leh ee maanka bini'aadanka gilgilaya muddooyinkii ugu dambeeyay waa kuwo ku soo badanayay magaalada xudunta u ah dalkeenna ee Muqdisho. dhacdooyinkaasi waxaa qayb ka ah midda hadda warbixinteenna ay daaran tahay ee ah 5 jir ka sababsaday gacanta adeerka hooyadii ay u dhaxday. aniga haanta dheer soo maro saarnahay moto bajaaj ayaa xaaliyada cunugaadi go'ninta sida ay soo waayay. tani waa hooyo Naciima Abshir oo saygeedii uu nolosha dhaafiyay wiilkeedii yaraa. waxa ay ka sheekaynaysaa sida ay u dhacday arrintan argagax leh. dhacdadaana waxay ugu dhacday shalay anigoo maqan oo isbitaal aaday balse cunug inaa walaashay u dhiigtaa rabay waa u dhiigi waay balse sida ay ugu dhagay wuxuu dhahay ilaa cunug ana haaya anaa kuu sii fiiriyaa u dhahayay balse cunug waa ugu tagaa sidoo ooyaa waan baxay isbitaalka markaa tagay oo soo noqday aniga haanta dheer soo maro saarnahay moto bajaaj ayaa xaaliyada cunugaadi go'ninta sida ay soo waayay. cunugtaada oo dhintay dhahay cunugay ma dhintaa dhahay cunugay soo ku dhimatay dhahay marka sida aan dhahay markay xoogahay cunugeygii xaasiisay wax ma siino dhahay cunugaadi naqas ku soo bood cunugay xana naqas kuma boodayna wiliisa naqas kuma dhicin xaasi xaaqalo qoqbad ma ala kul hal guriga imaado dhahay guriga imaaday ambaar markaa jooga cunuga fiidiyay qofta u horeys korkiis fiirs aniga ahay korkiisa fiidiyay meelaha ana xaq ku taalay wajida hortarkooda waxaan ka arkay qaraafo markaa ka arkaan caloosh ka qaabiyay caloosha waxa lagu dhuftay bareeskan xoobahay oo doo bareeska u taqaanid ayaa lagu garaacay oo calooshiisi macal meesha u dhaxays meelaha diirmiya ku taalo caloosha ay hurtay hooya ahay marka cunuggeygii gacan kar darnaa dishay marka inaa cadaalad inaa loo qabtaan jeclahay wax walbo sharciya oo ku tiirsan yahay in wax walba loo sameeyaan jeclahay cunuggeygii gacan kar darnaa dishay marka gacan dish inaa duldoogshaa loo qabto loo xukumaan jeclahay hooya ahay baarka dabqaa marka dhinaca kala deeqa Cabdullaahi Maxamuud waa eedada wiilka yar ee dilkiisa uu u dhacay sida lama filaanka ah. waxa ay sheegtay in wiilka markii ay kala tageen labadiisa waalid uu gacanta ku hayay awowgiis waxa ayna xustay in kadib ay dalbatay wiilka hooyadii in lagu soo wareejiyo wiilkeeda. waxa ay tilmaamtay in muddo ku siman 5 bil uu la joogay hooyadii balse arrintan dhacday iminka ay la amakaageen qoyska wiilka uu ka dhashay. cunuga awowgiisa hayay aabiisa ka soo waday hooyadiisa waxay tir cunugayga rabaa wiilka aabiis Maxamed allaha Maxamed oo ilaa cunuga isii maalmaha kamida Maxamed aan oo imaaday wuxuu dhahay deeqo cunugana xaro hooyadiisa inaan siiyo seeni la tahay xada Maxamed cunug hooyadiis wax ugu roon ma leh inaan siiso anaga waa jecelnahan dhahay maadaama hooyadiis ay haday daryeelaysan oo nin oo qabo wuxuu dhahay Maxamed hooyadiis ninkeeda isku rabaa cunuga inay haystaan sidii lagu siiyay ka bacdeedna hadda waxaan soo yeertay cunuga waa dhimay cunugii si xun loo dilay waxa ka muuqda la yaabayo walaalkay Maxamed waxaan jecelahay wiilkiisa inuu cadaalad helo wax dhibana ma jiraan saqiiraan intay saaca soo u qoraay haddii gacan bilaani disho iyo haddii malaka may dilo saacaas ma dhaafeen. xasan Dhiblaawa Faarax oo ah awoowaha dhalay wiilka yar ee sida arxandarada ah loo dilay aabihii ayaa dalbaday in cadaaladda la marsiiyo ninka falkan ku kacay. wiilkayga dhalay anna awoowaha oo wiilka dhalaan dhalay maydkii waa soo qaadnay waa yaalaa wiilka waa kaligii anna wiilkaan dhalo waygu kaligii dacwadii haddii la furay wuu qirtay gacantaydan oo ku sababsado war anaa dila yaa waa laga qoray waa laga akhriyay waa qirtay tolkiisii oo yimid iyo tolkaani waa u qirtay in maydka la raacsiyo saasaan jeclaa lahaa fartintaas waxaan diraa wixii islaama oo ashahaata iyo alle weynayo koonkan abuura waa xanuun iyo murugo uusan jirin wax lagu cabiri karo marka ubixi dunida aad ka fiirsanaysa misna kali kugu ahaa lagu sheego in dunida laga masaafuriyo isla markaasina uu sababsaday gacan ka xaq daran. dadka halkan ku suganna dhammaantood waxay u soo bambaxeen
in tiiraanyada iyo murugada ay la qaybsadaan qoyska wiilka yar uu ka geeriyooday waxayna dalbadeen in cadaaladda la hor keeno ninkii falkaa ku kacay xasan kaafi xaaji maxamed Shabeelle TV halka dhacdadu ay ka dhacday Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier